waan idin salaamay oo soo dhawaada fikradaha xalliya podcast iyo xalqad kale. Xalqadan waxaan rabaa inaan kugu baro sidee naag loo soo jiitaa. Waxaa laga yaabaa qaarkiin inaad isweydiisaan su'aashaas, laakiin aad wareersan tahay, fahmi la'aadahay waxay tahay. Videogan markaad dhamaysatid waxaad baran doontaa si buuxda sida loo noqdo nin soo jiidasho leh. Kumana xirna sida aad u eg tahay iyo waan madoobahay iyo waan cadahay iyo waan gaabanahay kuma xidhna. Waxaa laga yaabaa markaad maqashid soo jiidashada inaad isdhahdid waad ka fikirtid waxyaaba ay sida naaguhu uga fakaraan oo kale aadna aad uga fikirtid, laakiin adiga nin ahaan taadu way ka duwan tahay. Sidee ku soo jiidan kartaa naag kasta oo aad rabtid adiga oo samaynaya qodobadan soo socda. Qodobka koobaad, inta aanan bilaabin subscribe samey haddii aadan subscribe samaynin. Haddii aad hadda igu soo biirteena subscribe saar, sidoo kalena like saar barnaamijka, lana wadaag laba xaniyoodlayaasha kale. Qodobka koobaad ee aad ku soo jiidan kartid naag kasta waxaa waaye in aad taqaanid sida loo hadlo. Qodobkan waa qodobka ugu muhiimsan. Rag badan ma yaqaanaan sida fikirkooda looga hadlo, sida iyagu ay nafsadooda uga hadli lahaayeen ama ay isu express garan lahaayeen. Waayo naagaha waa inaad fahansantahay markay imaato shukaansiga iyo la hadalka iyo waxaasoo dhan culaysku aduu ku saaran yahay. Naag intaad wacdo heesee tahay maxaa haysaa ma fiicanta inaad ku celcelisid aad bay boring u tahay. Waa inaad taqaanid sida loo hadlo, waa inaad taqaanid sida sheeko loo sameeyo, waa inaad taqaanid sida experience iyo waxyaabo kugu dhacay looga hadlo, waa inaad taqaanid sida waxyaabo aad aaminsan tahay, fikrado aad aaminsan tahay, mawduucyo aad soo aragtay in aad si toosa uga hadli karaysid oo faseexa oo ay naagtu ku fahmi karayso. Intaad naag wacdid hadhihin qof yahay ii sheekeey, qof yahay ma ila hadashid, maxaad u hadli leedahay? Guys, naaguhu ma yaqaanaan sida loo hadlo. Anaa hadda kuu sheegaya. Naaguhu ma yaqaanaan sida loo hadlo iyo sida nin loo shukaansado toona. Aday kaa sugayaan inaad hadashid, aday kaa sugayaan inaad sheekaysid. Culayskaasoo dhan aduu ku saaran yahay. Waana muhiim inaad baratid sida loo hadlo. Weliba sida loo hadlo si degan loo sharaxo pointkaaga, loogana sheekeeyo experience-kaaga iyo waxyaabaha kala duwan ee nolosha aad aragtay. Kuma dhahayo wax kasta ka sheekay, laakiin aad bay muhiim tahay nin ahaan si aad u noqotid nin soo jiidasho leh inaad hadashid. Waayo si kasta oo aad weji ahaan iyo jir ahaan iyo dhaqaale ahaan wax kasta aad uga diyaarsan tahay, marka aad naagta afka u kala furtid waa markay ogaanayso inay kula sii hadli karto iyo inaad ka mid tahay keliya raggii bareesharka saari jiray ee ay sheekay. Taas micnaheedu waxaa waaye hadal ma taqaanid. Naaguhu rag qaar way ku caayaan, waxay dhahaan oo xalliye raggan aan shukaansada hadal ma yaqaanaan. Ma taqaanaa micnaheeda. Dhinac kasta uu ka dhisan laakiin ma hadli karaya ninkani. Waxa ugu muhiimsan ee naag soo jiidashadeedu ay ku dhismi kartana adigana ay soo jiidasho gooniya ku hayn karto waxaa waaye inaad taqaanid sida loo hadlo ama la isu express gareeyo. Qodobka labaad ee aad ku noqon kartid nin soo jiidasho leh naag kasta soo jiita waxaa waaye in aad si toosa indhaha uga fiirisid. Markay imaato naagaha la macaamilkooda waxaa jirta naag aad rabtid inaad la hadashid, laakiin eye contactigaaga waa muhiim. Inaad taqaanid si toosa in indhaha naagaha looga fiiriyo adigoon gambanaynin, adigoon baqaynin. Qaarkiin markaad naag saa u fiirisaan waad ka soo jeesataan isla markiiba ama hoos baad fiirisaan. Taas waxay caddaynaysaa mar kasta in aadan ahayn nin soo jiidasho leh, inaadan ahayn nin naagtu ay isku halayn karto ama ay attraction fiican u qaadi karayso. Waa in markaad haddaad rabtid inaad naag fiirisid caadi u fiiri, si toosa u fiiri, indhaha si toosa uga fiiri ilaa naagtu intay indhaha biraq ka siiso ay jeesato. Taas aad bay muhiim u tahay, waana 100% waxyaabaha aad communicationka ku samayn karaysid adigoon hadlin. Eye contactiga aad buu muhiim yahay. Mar kastaad naag fiirinaysid ama mar kastoo aad naag meel iskugu imaateen aad shukaansanaysid, ballan aad la lahayd oo aad wada fadhidaan, markay hadlayso, markay sheekaynayso, markay qoslayso, markay rabto inay wax ku weydiiso, adigu saa indhaha uga fiiri. Waa calaamad caddaynaysa inaad laba xaniyo tahay ama dominance nin raga oo iyada ka awood weyn inaad tahay. Mar kasta waa inaad fahantaa naagtu maskaxdeeda waxay ku haysataa fikir ah in adigu aad ka sarraysid ama aad ka fiican tahay. Sidaa daraaddeed ba naagtan kuu shukaansanaysaa. Haddii kale kumay shukaansateen haddii ay og tahay inaad ka qiimo hoosaysid ama aad tahay ninka liita. Haddii aadan fiirin karaynin waa calaamad caddaynaysa inaad cabsanaysid, inaadan kalsooni lahayn oo aad hoos fiirisid ama aad xishoonaysid. Isbar ilaa aad indhaha ka jeedin weydo naagta oo aad saa u fiirisid. Wax ka khaldanna ma jirto inaad naagta indhaha si toosa uga fiirisid. Qodobka saddexaad ee aad nin soo jiidasho leh ku noqon kartid xilliga aynu hadda joogno naag kastana aysan maya ku dhihi doonin ama aysan kaa jaakiri doonin waxaa waaye si saxa u istaag.
markay imaato postureka iyo istaagiina qaarkiin saan baad isku tihiin garbuhu way idin hooseeyaan hoos baad u foorartaa adiga dhan tuurtuur baad isku yeelaysaa si sax uma istaagi kartid sidee rabtaa inaad inta naagsaa u hor istaagtid qoortaada kor ah garbahaaga gadaal geli xabadkaagana ha soo taagnaado waxay caddaynaysaa in aad okay ku tahay body languagekaaga inuu saxsan yahay in aadan wax cabsiya iyo wax walwala qofka aad tahay aadan ka qabin laakiin adoo garbuhu isku kaa dhaceen oo foorarsanaya saa hoos u fiirinaya inuu indhaha gebgab ka siinaya bushmaha dhuuqaya baad rabtaa inaad naagtiisaa u hor istaagtid way adkaanaysaa garbahaaga kor u bixi gadaal geey xabadkaaga ha soo taagnaado qoortaadana kor u qaad taas waa calaamad caddaynaysa in nin ahaan aad okay ku tahay qofka aad tahay okay laakiin markaad taas samaysid oo aad dhabarkaagii uu isku jabsan yahay adigoo dhan hoos aad fiirinaysid waad cabsanaysaa kalsooni la'aanna way ku haysaa mana noqonaysid nin naagtu ay soo jiidasho u dareemayso qodobka afraad ee sidoo kale aad ku noqonaysid nin soo jiidasho leh oo ay naag kasta kaaga helayso adiguna aad attractionka ama soo jiidashada naagaha aad kor u qaadaysid waxaa waaye in mar kasta tintaada jarnaato gaysal wax baan idiin sheegaya markay imaato garhkaaga tintaada iyo like maanta oo dhan haddaad u eg tahay nin iska rarafaadsan tintii ku baxday ama meelahan tina kala duwan ka soo baxsan yihiin tintiisi aysan clean ahayn waxay caddaynaysaa in aadan soo jiidasho lahayn nafsadaadana aadan ka teekargarin waa muhiim inaad si isbuuclaa tinta u jaratid oo tintaadu ay mar kasta jaran tahay clean fresh aad tahay taasna waxay kaa caawinaysaa jaaniskaaga soo jiidashada kor buu aadaya waayo naag markay ku fiirinayso marka koobaadba waxay fiirinaysaa ninkan ma yahay nin aan dareemi karo inuu aniga iga sarreeyo nin tintu ku baxsantaho isagoo xataa tinta iska jari lah naagtan ma dareemayso in soo jiidasho ay u hayso iyo inay rabto toonna waxay dareemaysaa taas sida ka soo horjeeda soo mar kasta waa muhiim inaad tintaada si isbuucla ah iyo si maalinla ah aad u jartid isbuucii hal mar haddaad tinta soo jaratid waa muhiim cidiyahana aad iska jartid si adigoo markaad bannaanka tegtid aad nafsadaada u bandhigi kartid adoo ah nin kalsooni leh markasta fahan markaad tinta jaratid cidiyaha jaratid dhar fiican xidhatid waxyaabahaasoo dhan qayb waxay ka qaataan kalsoonida ninka ragga qodobka lixaad ee aan rabo inaan kan ku daro waxaa waaye markaad naagaha la macaamilaysid si aad u noqotid nin soo jiidasho leh ha noqonin buug furan maxaan ka wadaa marka qaarkiin aad naagaha la hadlaysaan waxaa laga yaabaa inaad war ku daldashid adoo isdhahaya naagtan ha kaa hesho ha soo jiido ha kuu soo dhowaato waxyaabahaasoo dhan laakiin mar kasta waa muhiim inaadan noqonin buug furan waad hadli kartaa waad sheekayn kartaa nafsadaadana 1 iyo 2 iyo 3 waad ka sheegi kartaa laakiin maalinkaad dhalatay ilaa maanta wixii kugu dhacay haddaad naagta 1 saacad uga sheegtid waxbaa ka khaldan tanof baana dhacaya soo jiidashadii naagtaas ay kuu qabtayna hoos bay u dhacaysaa waa inaad fahantid psychologically naaguhu waxay jecel yihiin in ay wax baadhaan inay wax soo ogaadaan inay iyagu wax kaa ogaadaan maanta oo dhan haddaad xataa tahay nin noloshiisa waxyaaba badan kala socdaan waxyaaba badan haysta iyadoo ha soo ogaato faraha ka qaad ha samaynin maanta oo dhan hoy ani waxan baan haystaa ani kan baan haystaa moogtahay youtube channel kan baan leeyahay intanoo qof baa i daawata maxaa la dhihi jiray anigu caan baan ahay moogtahay ima taqaanid miya magacayga maad maqlin ha samaynin iyadaa ogaanaysa waxaasoo dhan step by step soo ha noqonin buug furan adoo isku dayaya naagta inaad ku qancisid ama aad gadatid rabitaankeeda saxda taasna hoos waxay u ridaysaa inaad noqotid buug furan waxay hoos u ridaysaa in soo jiidashada ay naagtu kuu qaadi lahayd ay yaraato waayo mar kasta su-aal bay isweydiinaysaa oo ah haddaad u baahan tahay waxa aad tahay inaad caddaysid mar kasta ama aad bruufgaraysid oo aad naagta isku daydid inaad ku qancisid taas micnaheed waxay tahay shaki bay ku gelinaysaa calaamad su-aal bay naagtan ku saaraysaa waxay leedahay ninkani hadduu taajiriyo wax haysto muxuu iga gadaya inuu taajir yahay muxuu igu sheegayaa waxaan oo dhan anuu kambaniyaan leeyahay waxbaa ii kala socda waddan hebel baan ka imaaday basaboorkaasaan wata waxaasoo dhan naagtu uma baahna informationkaas waa useless naagtuna uma baahna waana waxyaabaha keenaya in naagtu ay su-aal iska weydiiso ragga qaar waxay dhahan aniga abbaa lacagan haystaa wallahi waxaan rabaan kuu qaban karaa waxaan rabaan ku siin karaa naagtu waxay leedahay mataqaanaa automatically waxay ku gelinaysaa maskaxdeeda categoriga ah kan waa useless waa daanyeer waan iska isticmaalaya wax kaloo ku roon yahay ma jirto maxaad ka hor istaagtay inay iyadu wax kaa ogaato maxaad ka hor istaagtay inay iyadu soo jiidasho dhaba ay kuu qaaddo ama rabitaan saxa
qodobka kale isaguna aad u muhiima si aad u noqotid nin soo jiidasho leh naag kasta oo la macaamilayana ay ka hesho waxaa waaye xiro dhar ku leeg. maxaan ka wadaa qaarkiin waxaa laga yaabaa inaad dhar qaaliya soo gadatay dhar fiican soo gadatay laakiin dharkaas fit ma aha kuma leeka uu kaa weyn yahay ama uu kaa yar yahay. waxaa laga yaabaa adoo 30 jir inaad xidhan tahay surwaal sidii canug yar oo 15 jir oo kale kugu dhegan ama surwaalada lagu seexdo aad bannaanka ku soo aadid ama suuqa aad ku aadid. nafsadaada si serious u qaado waana muhiim inaad hubisid in dharkani ku leegyihiin inay kugu soo baxayaan ay ku leegyihiin fit ay yihiin sidii canug yarna aadan u labisan sidii dharkan oversize iyagoo aadan xidhanin waa inay dharkan ku leegyihiin oo jidhkaaga sida uu yahay ay u leegyihiin. hana aadin dhar kaa waaweyn hana aadin dhar kaa yaryar oo kugu dhegdhegan waa inaad dhexdhexaad ka dhigtid markastana waa muhiim dharkaagu inay fit yihiin oo ay ku leegyihiin. okay arrinta kale aan rabo waxaa waaye inaan ku daro si aad u noqotid nin soo jiidasho leh maqaarkaaga ka teekargare. maxaan ka wadaa maqaarkaaga ka teekargare qaarkiin waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso oo xaliya meeqa kareem baan u baahanahay inaan marsado face routine miyaan sameeyaa maxaan qabtaa waxaasoo dhan hal wax baan kuu sheegayaa maqaarka inuu maqaarkaagu clear noqdo waxaa xataa mas-uulka ah cuntada waxaa mas-uulka ah inaad biyo badan cabtid waxaa mas-uulka ah hurdadaada waxyaaba badan baa jira. haddii aad leedahay oo kale finan ama haddii aad wejigaaga wax kaa soo baxeen oo kale ama wejigaaga clear ahayn dhibaata ma jirto dhakhtar skinka ku takhasusay u tag la tasho fiiri waxa wejigaaga ka khaldan ogow wejigaaga noocuu yahay ma nooc saliid laba ma nooc qalalanba muxuu u baahan yahay wejigaaga waxyaabahaasoo dhan ha iska isticmaalin kareem kasta ha iska isticmaalin qashin kasta oo aad gadatid adoo u malaynaya in wejigaaga ku roonaanayo. so waa muhiim skinkaagu in aad ka taxadartay oo uu nadiif yahay. taas waa calaamad caddaynaysa in nin ahaan nafsadaada aad serious u qaadatid adiguna aad iska teekergaraysid. mar kasta waa muhiim intaadan dad kale wax u qabanin adiga horta waa in la fiiriyo kabahaaga. maxaa la dhahay ninkaad kaba ka tiloonaysid kabihiisa fiiri. so mar kastoo aad nafsadaada ka taxadartid mar kastoo aad nin ahaan si serious nafsadaada u qaatay oo skinkaagu clear yahay oo dharka ku leega aad wadatid maxay caddaynaysaa naagta waxay u caddaynaysaa positive waxaad diraysaa fariin ah oo ah ma ihi ani canug yar ma ihi oo la daba raaco. qaarkiin waxaad sugaysaan inaad naag guursataan de naagtaas ay adiga ku fikis garayso kuu sheegto dharkaad xidhan lahayd kuu sheegto wejigaaga saad u dhaqi lahayd kuu sheegto tinta saad u jaran lahayd waxyaabahaasoo dhan. sidaa daraad baa arkaysaa nin markuu naag guursado wuxuu rajaynayaa in iyadu ay badbaadiso inay wax kasta uu yahay ka beddesho oo ay ka dhigto nin nooc kalaha isagoo dhan oo xaajigan waxaanu marnay xaajiga dhar baan ugu labisaya kaale dharkan baa kugu soo baxaya maya waa inaad og tahay dharka nooca kugu soo baxaya dharka waxaad ka heshid kabaha noocaad ka heshid iyo wejiga waxyaabaha adiga aad tijaabisay kuu shaqeeya aad isticmaashid. qasab maaha inay naagtu ku xalliso wax kasta mar kasta naagtu hooyada maaha ha ka rajaynin naagtan in markaad guursatid ay noloshaada beddelayso. qaarkiinna waxaa laga yaabaa markaad naagtan bilowdaan inaad shukaansataan in ay naagtan haysataba fikradaasi ay noloshaada u beddeli lahayd laakiin mar kastoo aad nafsadaada serious u qaadatid oo mar kasta naagtu og tahay inaad tahay nin seriousa nafsadiisana daacadu ah marka ay imaato sida uu ilaalinayo ama uga taxadarayo. arrinta kale aan kan ku daro waxaa waaye waa muhiim markaad naagaha la kulmaysid ama sideeda bannaanba in aad ka taxadartid caraftaada. qaarkiin idinkoo qaanjeerlo aan qabaysanin baad naagahan u tagtaan waxaa laga yaabaa inaad soo qabaysatid laakiin wax barafuuna aadan isticmaalin waxaa laga yaabaa inaad lacag haysatid aad shaqaysatid laakiin aad ka cabsanaysid inaad maal gashatid barafuun fiican. waa muhiim inaad maal gashatid carafta iyo barafuunada saabuun fiican ku qabayso barafuun fiican soo qaado deodorant fiican oo ku anfacaya soo qaado. maxay taasi kaa caawinaysaa waxay kaa caawinaysaa marka aad naag la kulmaysid ama marka naagay ku aragto ma tihid nin soo shiiraya adiga kalsoonidaadina kor bay sii aadaysaa waayo waad is og tahay inaad barafuun fiican kaa soo carfayo waad is og tahay inaad si fiican u soo qabaysatay waad is og tahay inaad nadiif tahay. waxyaabaha ugu waaweyn ee naagaha soo jiidashadooda dila marka aad shukaansanaysaa waxaa waaye inaad tahay nin aan isdanaynaynin oo anigu nin baan ahay soo nin baa tahay marka adoo dhidid laad seexanaysaa nin baa tahay adoo jiimkas aad uga imaatay soo shiirayaad rabtaa inaad naag la kulantid maya. intaas awoo ku soo gabagabaynayaa xalqadan waxaan rajaynaya inaad wax badan ka faa'iiday nin ahaanna aad tijaabin doontid waxyaabaha kala duwan ee aan kugu sheegay xalqadda toddobaadkan. waad ku mahadsan tahay daawashadaada la sheer garay asxaabtaada sidoo kale like saar subscribe saar channelka waan kaaga mahad celinayaa daawashadii waqtigeena wada qaadanay intaynu ku kulmayno xalqad tan lamida waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.